macluumaad ku saabsan dalka Argentina. dalka Argentina waa wadan dhaca qaaradda Koonfur America, waana dalka labaad ee ugu dhulka weyn Koonfur America, waana dalka saddexaad ee ugu dhulka weyn dunida. Waxa uu ku fadhiyaa dhul badkiisu yahay 2,780,400 oo kiiloomitir oo wareeg ah. Tirada dadku waa 43,847,400, waana dalka 32aad ee ugu dadka badan dunida. luqadda rasmiga ah ee dawladda Argentina waa Spanish. caasimadu waa Buenos Aires, waana magaalada labaad ee ugu dadka badan Koonfur America. waxaa ku nool 13.5 milyan, waana mid ka mid ah saddexda magaalo ee ugu nolosha wanaagsan Koonfur America. waana magaalada ugu dalxiiska badan dhanka dhaqaalaha. waa magaalada 13aad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. waxa ay leedahay dakhliga ugu badan ee qofkiiba soo gala ee Latin America. dalkani waxa uu xuduud la leeyahay wadamada Chile oo galbeedka ka xigta, sidoo kale waxa waqooyiga ka xiga dalalka Bolivia iyo Paraguay. waqooyi bari waxa ka xiga Brazil iyo Uruguay. bari waxa ka xiga badweynta Atlantika. Argentina waa xubin ka mid ah 20ka dal ee ugu dhaqaalaha badan dunida ee G20. lacagta dalkani waa peso. qiimaha lacagta dalkani markii lagu qiimeeyo dollarka Mareykanka, halkii dollar waa 24.9. waa dalka 25aad ee ugu dhaqaalaha badan dunida iyo dalka labaad ee Koonfur America. magaca Argentina waxa uu ka yimid ereyga Laatiiniga ee Argentum oo macnihiisu yahay silver ama qalin. dadkii ugu horeeyay ee reer Yurub ee taga halka ayaa rumaysnaa in buuraha dhulkan uu ka buuxo qalin ama silver, sidaa darteed waxa ay ku magacaabeen Argentina. dadka Argentina asalkoodu 97% waa European, kuwaas oo ka soo jeeda Spanish iyo Talyaani, iyo 3% dad asalkoodu yahay Amerindian. Argentina waxa ay ka kooban tahay 23 gobol oo federaali ah iyo xarunta dalka ee Buenos Aires. dalkan waxa uu leeyahay wadada tareen ee ugu dheer Latin America oo dhererkeedu gaarayo 36,966 kiiloomitir, taasoo isku xiraysa dhammaan gobolada iyo caasimadda. dhaqaalaha Argentina waa kan saddexaad ee Latin America iyo kan labaad ee ugu weyn Koonfur America. awoodda wax soo iibsasho ee dalkan waa 625.9 bilyan, waa dalka 21aad ee dunida. awoodda wax iibsasho ee dalkan waa 625.9 bilyan, waa dalka 21aad ee dunida. dakhliga guud ee dalkani waa 959.5 bilyan. dhaqaalaha dalkan waa mid weli koraya. waxa uu leeyahay suuqyo waaweyn oo sii kordhaya oo tiknoolajiyada ah.